aad baan idiin salaamayaa asxaabta jaamac siyaad hambaliyo caawa waxaynu gaadhnay 9,000 laakiin ma dhowa page-keenu follow gareeya muuqaalada inoo share gareeyo inoo like gareeya caawa qoladii huwantu shir guud ay galeen 3 guutaa ka soo baxay magaalada oo tii cabdi madoobe ku jirto waxay qorsheynayaan inay bari dagaal soo qaadaan ciidamada qarankuna ishay ku hayaan afarta dhinacba waynu ka joognaa sidoo kalena targetkeenu waxa weeye gacan ku haynta magaalada inaynu dib u soo wareejino magaaladan dhufayska ay ka dhigteen in ciidamada RRU la wareegaan gudaha magaalada marka ciidamada qaranku gutooyinka soo baxay jibiyeen halkay dib uga noqon lahaayeen waa inaanay noqon ama ay isdhiibaan oo ciidan jabay noqdaan laakiin inay magaaladii dib u noqdaan haddana dhufays iyo dib uruursi la galo inaanay dhicin baan rajaynaynaa maadaama ciidamada RRU u tababaran yihiin sifaynta argagixisada qoolad kastay ku jiraan iyo ilaalinta xasiloonida magaalooyinka dhexdooda marka ciidamadaasi waxay naga caawin doonaan 100 tiknika oo jooga inaan dhufays dambe magaalada dib looga dhigan oo aanay dib ugu noqon marka magaalada ka baxaan oo ciidanka magaalada laga saaro ma noolaan karaan male ciidamadan saldhig ma laha kayd ma laha miisaaniyad ma laha waxba ma laha waxa la cunayay magaalada lagu dhex cunaya waa xoolihii shacabka iyo maatada qaxday waxa la burbursanaya waa hantidii maatada guryaha la degan yahay waa guryihii maatada marka ciidamadu magaalada ay ka saaraan kadib marka magaalada ciidamadu ka saaraan waxa fududaanaysa dhamaadka dagaalka fududaanaya qorshaha ciidanka targetka koowaad weeye waayo haddii kale ma soo afgo'ayaan sidaan hore idinla wadaagay guutada ugu firoon ee loogu tababarka qaatay waxa weeye guutada cabdi madoobe way soo baxday caawa dibadda magaaladay joogtaa inkastoo isagu mar walba baagab yahay xagga dambe galo abaanduule ciidanna aanu noqon marnaba oo safka hore ma galo dabadu ka soo dhiirigeliyaa guutadan labaad ee guutada Jimcaale waa guutadii orodka badnayd orodyahankii caanka ah reer Puntland ee Jimcaale hogaaminayay guuto lagu saso maaha runtii inta badan ciidan Puntland wuu watay oo ciidan ahaan u tababaran laakiin ciidan u babacdhiga kara qaranka maaha waa ciidanka mar walba jaba waa ciidanka maxaabiista ugu badan aan kala hadhnay waa ciidanka baabuurta ugu badan aan kala wareegnay marka taasina kalsooni buuxdaan ka qabnaa guutada saddexaad ee Cali Saleebaan iyana timi waxa weeye macawisley guutadaasi rag ciidan u tababaran maaha raggaas ka lugeynaya kule halkaas aan maraynay iyagoo qoryihiisa marka horta saas wax u dhacayaan laakiin waxay qorsheeyeen inay dagaal bari soo qaadaan bay qorsheeyeen wax iska bedeli mooyi laakiin minute kasta ciidamada qaranku waa diyaar dhinac kasta oo miineeyeen nashqadoodii ciidamada qaranku waa hayaan ciidamada qaranku waxay diyaar u yihiin soo afjaridda xaaladda laascaanood ee balawalba isugu timi wararkii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnaa iminkay noo bilaabanayaan xaalad kastoo qaranku ku sugan yahay xaalad kastoo laascaanood ku sugan tahay jab kastoo gaadha huwanta wax walba waa idinla soo sheergaraynaynaa iminkay wararku si joogtaa aynu kala qaadanaynaa iminkay wararku inoo bilaabmayaan fadlan inoo sheergare oo inoo leegare ku booba meel laynaga iibiyaa wixii abdaydana waan kala qaadanaynaa subaxa wixii soo kordha caawana midmidh baynu u kala qaadanaynaa muuqaalada inoo sheergareeya ciidamada RRU waa ciidamo kalsooni buuxda laga qabo inay la wareegi karaan magaalo kasta oo dhufays ay ka dhigtaan argagixisadu meel kastay kaga jiraan xaqdhowrkii iyo wax walba dib loo dhigayay waa dhammaadeen gebagabadii baynu joognaa qaranku waa guulaysanayaa guul baynu u rajaynaynaa dhammaantiin waynu guulaysanaynaa xaqa iyo nabaddaa waaraysa aad baan u salaamayaa mar labaad asxaabta jaamac siyaad inoo sheer gareeyo inoo follow gareeya